بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو وناكسنا خيارتي قيمها قايها هي قدرتها مدنية هودنا قال حيل الساعي كنا سود وهذا وروحي دلك جوديسا يدي بدي سبنا جسوا قاري ونتكسو قد بنت الفيش كقرقة جمهورية الصومال حرونت سما قالها هرجيسا قضبة وركنا وظهرنا وحكمدا xubno ka mid ah golaha wasiirada mas'uuliyiin ka socotay xisbiyada macaaridka iyo aqooyahan tiro badan ayaa ka qayb galay bandhiga buuga loogu magac daray yoolalka horumarka waara oo lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa maamulka gobolka Hawd ayaa ka qayb galay munaasabad loo sameeyay dafcadii 12aad ee ka qalin jabisay ardayda wax ka barata dugsiga sare ee Faarax Nuur ee gobolkaasi Hawd iyo sidoo kale soo dhaweynta arday ka qalin jabisay jaamacadda Adna Aadan ee magaalada Hargeysa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal ayaa xilkii uu kala wareejiyay gudoomiyaha cusub ee dhawaan loo magacaabay degmada Magaalacad iyo gudoomiyihii hore ee degmadaasi intaas waa qaar ka mid ah qodobada warka haatanna ku soo dhawaada qadar fariin wacyigelina waa fariimo caafimaad oo ku saabsan ka hortagga cudurka coronavirus si joogto ah ugu farxalo biyo iyo saabuun markaad qufacayso ama hindhisayso ku dabool afka iyo sanka soofta ama masar ama cududaada adoo suxulka soo laabaya kadibna farxalo isku salaama assalaamu calaykum hana iskacan qaadina haddaad muddo 14 cisho gudahood ah ka timid safar dibadda ah oo aad yeelato xumad iyo qufac garaac lambarka heeganka caafimaadka oo ah 988 kala durka laba tallaabo marka aad wada joogtaan gaar ahaan marka aad wada hadlaysaan haddaad isku aragto xumad iyo qufac ha tagin goobaha dadku ku badan yahay sida sariibadaha iskuulada iyo goobaha la midka ah si degdeg ahna ula xidhiidh lambarka heeganka caafimaadka ee ah 988 haddaad doonaysid talo la xidhiidha cudurka coronavirus garaac lambarka heeganka caafimaadka oo ah 988 haddaad ka timid meel ama dal uu ka jiro cudurka coronavirus garaac lambarka heeganka caafimaadka ee 988 14 cisho ee ugu horeeyana ka durug dadka meel gaar ahna isku koob oo cidna ha la kulmin muddadaasi ogow cudurkani ma laha tallaal iyo dawo rasmi ah laakiin waxa uu leeyahay ka hortag fadlan ku dhaqan fariimaha caafimaadka ee ay idiin soo gudbinayso wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland oo ay taageerayso hay'adda BSR Finland xubno ka mid ah golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mas'uuliyiin ka socotay xisbiyada qaranka iyo waliba aqoonyahan tiro badan ayaa ka qayb galay bandhiga buug la magac baxay yoolalka horumarka waara oo lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa Jaafar Axmed Bade ayaa faafaynta warkaasi noo haya yoolalka horumarka waara oo ah buug ay qortay qaramada midoobay isla markaasina ka hadlaya hiigsiga bulshooyinka adduunka ee sanadaha soo socda ayaa waxa lagu turjumay in ka badan 50 luuqadood oo adduunka ah waxaana hirgeliyay dadka afka Soomaaliga ku hadla ay afkooda kaga bogtaan aqoonyahan Cabdiraxmaan Cusmaan Gaas oo kamid ah aqoonyahanka reer Soomaaliland ku dhaqan caasimadda Hargeysa dabacada buugan oo hatii saddexaad ayaa bandhig ballaaran oo lagu qabtay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay xubno kamid ah golaha wasiirada xisbiyada qaranka ururada bulshada rayidka ganacsato aqoonyahan iyo dhalinyar aad u tiro badan ugu horeyna madashaasi waxa ka hadlay Cabdiraxmaan Cusmaan Gaas oo martida buugan uga waramay tirarka horumarka waara iyo nuxurka ballaaran ee xambaarsan yihiin iyo sida loogu baahan yahay bulshada uga faa'iideysato yoolalka horumar waara sidoo waxa weeyaan qorshaha horumarinta dunida ee ay dunyadu isku raacday oo la dejiyay 2015 kuwaasoo markaa ka dambeeyay ama dabagalo u ahaa qorshaha ka horreeyay la oranayay qorshaha 5 sano oo iyada la dejiyay 2000 dabeetana 15 sano shaqeynayay 2015 adduunyada mar labaad intay wada fariisatay isla garatay in la sameeyo qorshihii hore dib inta loo qiimeeyo wixii ka qabsoomay inta loo lacag lagu calaamadiyo wixii qabyo ahaa iyo waxa adduunyadu baahi leedahay in dib loo keeno yoolal cusub ama higsiyo cusub oo adduunyada ay wada higsato qoraa jaamac muuse jaamac oo halkaasi ka hadlaya isna iftiimiyey dadaalka iyo taabka dheer ee ka galay qoraa Cabdiraxmaan Cusmaan Gaas daabacada buugga yoolalka horumarka waara sababta isanahay maxaa la yiraahdaa development goals ka cusub ama yoolasha horumarka waara way ku guuleysanayaan waa tallaabada uu Cabdiraxmaan qaaday waa tallaabo ay dad fara badan qaadeen oo ah in aqoonta la degaameeyo waa aqoontu ay ku duxdo oo ay ka timaado oo go'aanka la qaadanayo uu ka yimaado aqoon la baaray aqoon la dhaliyay aqoon ummaddu iska aragto oo ay dareysan tahay inay leedahay xubno ka tirsan bahda aqoonyahanka jaamacadaha kala duwan ee dalka ururada bulshada rayidka iyo ganacsatada dalka ayaa iyana bogaadiyay qoraaga buugan iyagoo ka waramay wadamada adduunka iyo sida uga faa'iideysteen hiigsiga uu xambaarsan yahay buugani
gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucud injineer Faysal Cali Waraabe iyo xogayaha xisbiga wadani ayaa iyana soo dhaweeyay dadaalka Cabdiraxmaan Cusmaan Gaas uu buugaasi galiyay wasiirada wasaaradaha maaliyadda maalgashiga deegaanka isgaarsiinta shaqagelinta iyo arrimaha bulshada ayaa dhammaantoodba hambaliyay aqoon-yahan Cabdiraxmaan Cusmaan Gaas tacabka ballaaran ee uu galiyay qoridda iyo daabacadda buugan waxaana xubnaha wasiiradu ku dheeraadeen qiimaha iyo ahmiyadda ballaaran ee uu xambaarsan yahay buugani marka waa sax inaan Cabdiraxmaan hambaliyeeyo qabajeer wuxuu soo hambaliyay inuu buug qoray marka labaad waxa ku hambaliyay buug af Soomaali ku qorto buug af Ingiriisi lagu qoray oo terminology badan oo inaan lahayn leh oo u bareedo runtii waa arrin geesinimo u baahan marka ku hambaliyay arrinka la dagaalanka saboolnimada waa arrin uu caalamka dhan u danaynayo wax u gaara maaha wadamada soo koriya kaliya marka wixii laga qoray yoolasha caalamku dhigtay iyagoo af Soomaaliya inuu soo gaarsiiyo runtii waa arrin weyn oo aan ka mahadcelinayo mar kale in farmaka la ilaaliyo in muxuu gaajada la dabar jaro in mas'uuliyad la dareemo dhammaantood ku jirta waxaan baranayaa Dara Cabdiraxmaan oo leeyahay hambaliyo waxay inta qabatay waxa la yiraahdaa doonista taariikhda tagto ama waxa la sameeyo wax laga qoro ama waxa la qoraa wax mudan in la akhriyo raanti buugan mudan in la akhriyo waana buugaad qaaday Cabdiraxmaan Cusmaan Gaas marka qaarkood halkan la isku weydiiyay taasibadu Cabdiraxmaan waqtiga ugu horeeyay uu buugaad qoray ayaa hadalada ahay marka qaarkood la yiraahdo jiray ninka ku jira qoraysa jidaysa ninka ku jira jidaysa in sha Allah tabarakallah hadiya in badiyay ninka uu tusaya ninka wax badan uu tusay Allah maanta oo Cabdiraxmaan ka mid yahay jaamac halkan fadhiyo aqoon iraada halkan fadhiyo jaamac fadhiyo inuu ku qasbay inuu xaqrimo oo wax qoro oo sidoo kale inuu sameeyo وصار السمية هذا الدنيا ويقول بنتي أنت عندك أيه بشيء فأنا وصارت هذا القاضي بقولك بكسر القاضي وحنا إن شاء الله يتردرنا النبي بالله تعالى آخر ونبي تعيش أغتي سيجارة موسى وقرد عينيا ونمهد علينا فراغ دعيرك عبد الرحمن عثمان قاس oo runtii la soo baxay wax aanay dadku ku aqoonin haddii la yidhaahdo Cabdiraxmaan Gaas waa kuma waxaan filayaa qaar badan oo inaga mid yihiin wax kale ku tilmaami lahaayeen laakiin laga bilaabo caawa waxayna ku tilmaami doonaa inuu yahay qoraageennii soo saaray buugga yoolka horumarka nolosha waarta aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan bulshadayda leeyahay marka ugu horeysa تدوير كان قدم يوم كهرمر وعرا وحياة قف الصعبة إنه أخرين وقاطع وحوشليه هو تجاري كرتا يوم كهرمر وعرا سيدو كلامه وقفه وتتناسله وحياتها يوم كهرمر كقف كهر إيمانية وأي تعديات كمديهين وفقوه كمديهين ورتي عادين كهنحمي أي كمديهين gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal ayaa xilkii u kala wareejiyay gudoomiyaha cusub ee dhawaan loo magacaabay degmada Magaalo Cad iyo gudoomiyihii hore ee degmadaasi gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cawaale Faarax Cilmi ayaa maanta si rasmi ah xilkii ugu kala wareejiyay gudoomiyihii hore degmada Magaalo Cad oo ka tirsan gobolka Awdal iyo sidoo kale gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay degmadaasi munaasabadani ayaa waxa goobjoog ka ahaa oday dhaqameed iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool degmada Magaalo Cad waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadka deegaankaasi iyagoona soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay sidoo kalena hadallo dhiirigelin iyo sagootina u jeediyay gudoomiyihii hore degmadaasi gudoomiyaanu dooranay waa gudoomiye waayaraga in badan soo shaqeeyay ilaa 12 sanadood aqoon u leeyahay inuu dadka hogaamiyo annana waxaan ballan qaadaynaa inteeda kale inaan ku taageerno on hawlaha la qabanno waxaanu calaamadsanaynaa Xaafid Cusmaan waxaana ku kalsoonahay inuu hawsha sideeda u wadi doono gudoomiye waan ku soo dhaweynaynaa soo dhawaan ku leenahay
ma tihid xubin ka timida gobol kale ama deegaan kale waxaad maanta gudoomiye ka noqotay waa deegaankaagii waa nimaannu soo wada shaqaynay hawlo adag aanu soo wada qabannay sidaa awgeed baan ugu faraxsanahay degmadan magaalo cad waa degmo ballaadhan waxaan ku dardaarayaa gudoomiyaha cusubna dadkiisuna mid u ahaadaan waxaa laydinka baahan yahay idinkuna inaad islaamnimada ku shaqaysaan ood la shaqaysaan isaguna inuu cadaalad idinku shaqeeyaa looga baahan yahay waxaan leenahay xaamud xil badan baad soo haysay oo ku soo haysay ummadda maantana gudoomiye u sarreeyay degmada magaalo cad baad tahay lagu tilmaami maayo adigoo dee nin weynoo rug cadaadayaa tahay bulshadana waxaan leenahay in nasiib baad u hesheen adla si wacan ula shaqaysaan waxaan leeyahay dhammaan rag iyo dumar cuqaal waxgarad iyo waayeelba aanu gacmaha isu qabsanno sidaynu u horumarin lahayn degmadeenna oo keliya weeyi intaa kadib waxaa hadalka qaatay gudoomiye ku-xigeenka degmada magaalo cad ee ka tirsan gobolka Awdal oo si ku meel gaar ah u sii hayay maamulka degmadaasi waxaana uu yiri halkan agabka dawliga uu ku dhayo MCHkii loo arkaysan waa dhakhtarkii iskuulkii waa arkaysan waa dhisan yahay saldhig in loo bilaabani uu jira gobolkuna uu ballan qaaday inuu imika si degdeg ah loogu dhisi doono inta kadib gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay deegaanka magaalo cad Xamed Cusmaan Qowdhan ayaa sheegay sharaf bay tahay intii aan inta badan la soo shaqeeyay marka hore odagoog ahaa maantana culeyskan isaartay aad iyo aad baan ku hambalyeeyaa ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in aan igu hanuuniyo dariiqa xaqada ka cadaaladda haroonka ilaahay baa ilaahayna waan ka rajaynayaa idinkuna waxay baraysaa ilaahay ugu rajeeyo ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay isla markaana si rasmi ah xilkii ugu kala wareejay gudoomiyihii hore degmada magaalo cad iyo sidoo kale gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cawaale Faarax Cilmi waxaana uu yiri waxaan u ducaynaynaa maayirkii hore ee halkan ka tagay inuu ilaahay au barakeeyo oo meel kale oo meeshan dhaantay helo isna meel halkan dhaanta oo helo macna waxaan ka wadaa dalka uu joogo kor uga sii socdo maayirka cusubna waanu ducaynaynaa isna waana la dardaarmaynaa Allah xilka ku asturo maayirka cusub ama gudoomiyaha cusub Xamed Cusmaan Qowdhan ma uga wareejin doonaa maayirkii hore oo hadda joogin oo matalo maayirku xigeenku waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Boorama maamulka gobolka Hawd ayaa ka qayb galay xaflad loo sameeyay dafcadii 12aad ee ka qalin jabisay dugsiga sare ee Faarax Nuur ee gobolkaasi iyo sidoo kale soo dhaweyn loo sameeyay arday ka qalin jabisay jaamacadda Adna Aadan ee magaalada Hargeysa waxaa maanta magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Hawd lagu qabtay munaasabad ballaadhan oo lagu sagootiyay dufcadii 12aad ee ka qalin jabisay dugsiga sare ee Faarax Nuur ee magaalada Balligubadle sidoo kalena lagu soo dhaweynayay 31 arday oo ka qalin jabiyay jaamacadda Adna Aadan ee magaalada Hargeysa xafladan oo ahayd misi ballaadhan loo soo agaasimay ayaa waxa lagu qabtay hoolka shirarka xarunta gobolka Hawd waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen barasaabka gobolka Hawd gudoomiye ku-xigeenka hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland maayirka Balligubadle xogayaha gobolka Hawd siyaasiyiin aqoon-yahano waalidiin culimaawidiin iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeyn madashaasi hadallo kala duwan ka jeediyay xubno ay kamid ahaayeen maamulaha dugsiga sare ee Faarax Nuur ee magaalada Balligubadle Sheekh Khalid Haarun gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Hawd Maxamed Cabdi Maxamed Shiine iyo isku duwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Hawd Axmed Cali Direyse dhamaantiin aad iyo aad baan idin salaamaya marka hore runtii waxa ii farxad ah inaan xafladan qiimaha iyo qaayaha badan idin kala soo qayb galo waxaynu ugu horeyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala u mahad celinaynaa inuu gaarsiiyay maanta oo kale 42 ka arday ka Soomaaliland ahaan markii la eegay ama gobolada Soomaaliland la eegay 20 arday baa keenay 19 B bay keeneen 3 ardayna C bay keeneen celcelis ahaan markii boqoladii la eegay jamhuuriyadda Soomaaliland goboleedyada dhan markii la eegay waxa ugu sareeyay gobolka Hawd hablahan maanta halkan fadhiya ee ka soo qalin jabiyay jaamacadda Adna waxa weeye waa hablihii ka baxay dugsiyadan gobolka Hawd ardayda aan sii sagootiyo ee ka baxay dugsiga sare imika
iyagana waxaan leenahay qaar ka mid ah aynu gobolka saa ugu soo celinno oo aynu koorse kale u dirnay iyagana haddii aan la yidhaahdo waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay siyaasiyiin aqoon-yahano dhallinyaro culimaaudiin waalidiin iyo qaar ka mid a ardaydii kala duwaneed ee ka kala qalin jabiyey dugsiga sare ee faarax nuur ee magaalada balligubadle iyo jaamacadda adna aadan ee magaalada hargeysa runtii aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa uguna faraxsanahay hablaha qiimaha badan ee aqoonta maanta 31 ka mid ah iyo inta maanta iyaguna high schoolkii dhammaysay ee u gudbaysay iyaduna heer jaamacadeed runtii xafladanu waa xaflad aad u qiimo badan oo maxaa idhaahdayey taariikhdiina ku suntan oo ka mid noqon doonta meel wanaagsan idin mariyo shaqo wanaagsan oo islaam socod oo ugu shaqeysaan dadkiina iyo dalkiina iyo naftiinaba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala idin siiyo kuwa soo socdoona inuu ilaahay idinka dhigo qaar soo gaadha halkaas maanta kuwa soo gaadheen iyo meel ka sareyso oo aydan dhexda ka noqon waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen maayirka degmada balligubadle cabdi iimaan jaamac xogayaha gobolka hawd maxamed faarax suugaal iyo gudoomiye ku-xigeenka hay-adda shaqaalaha dowladda somalilan cabdikariin xaaji cali iyo badhasaabka gobolka hawd injineer axmed cigayare maanta halkan waxaa ka qalin jabinaya ardaydii caafimaadka oo sii sagootinayno 2018 bishii saddexaad ayaa halkan digtoorisa adna aadan uga daafurtay inay ardaydaasi ay waxbarashadooda kafaalo qaadaso waxaa lagu xareeyay 35 arday maantana waxaa ka qalin jabinaya 31 arday maanta waxaa noo farxada annagoo sii sagootinayna ardaydii ka baxday sanadkan 2019-2020 aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waxaa kaloo aad halkan ku soo dhaweynayaa hablaha aan soo dhaweyno ee ahaa soddonka ee ka baxay jaamacadda adna aadan qolada timid tacab baa la geliyey siyaasadda wasaaradda caafimaadka iyo xudxudashada reer balligubadle iyo gacantii laga helay hay-adda GISAT iyo dadaalkay idin gelisay adna aadan baad halkaa ku timaadeen 30 qof baad tihiin runtii waxaad kala joogtaan balle cabane sayla gumburaha balligubadle iyo salaxle dhammaantiinba waxaad tagnin dadkii gobolkan hawd inay u tabcaan la doonayay marka ugu horeysa waxaan aad iyo aad ugu horeysiinayaa oo aan aad u salaamayaa waalidiinta labada kooxood ee maanta halkan joogay qolana la sabootiyayo qolana la soo dhaweynayo ayaan ugu horeynayaa hambalyada ugu horeysiinaya waayo la'aantiin labadiina kooxood midna halkan maydaan soo gaadhin haddaydan lahayn waalidiin qaaliya oo ayna dhinac taagan oo xafladayna la jooga oo ina dhiiri gelinaya haddaydan lahayn yacni halkaa maydaan soo gaadhin bahda caafimaadka waxaan halkan uga mahad celinayaa doctorayso adna aadan iyo dhakhaatiirta jaamacadda adna aadan iyo kalkaaliyayaashii waxaynu soo baray iyo hay-addii gacanta inaga siisay iyo suduwihiinna gabagabadii munaasabadaasi waxaa shahaado sharafyo iyo abaalmarino kale lagu guddoonsiiyey xubno ay ka mid ahaayeen maamulaha dugsiga sare ee faarax nuur ee magaalada balligubadle iyo guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka hawd maxamed jiciirow axmed TV qaranka Somaliland magaalada balligubadle gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer ayaa soo gabagabeeyay shir muddo 4 maalmood u socday faracyada kala duwan ee jaamacadaha Golis ee Somaliland gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer iyo sidoo kale gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa soo xiray isla markaana soo gabagabeeyay shir muddo 4 cisho uga socday jaamacadaha Golis ee Somaliland magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana shirkaasi lagaga hadlay qorshaha 5 sano iyo sidoo kale horumarinta jaamacadahaasi Golis ee Burco ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadaha Golis Cabdi Xuseen Gaas iyo sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Golis faraceeda magaalada Burco ee gobolka Togdheer Cabdixakiin Maxamed Cabdilaahi waxaanay faahfaahin ka bixiyeen qorshahaasi maanta waxaan ku soo gabagaboobay in loo qorsheeyo loona fuliyo bahda Golis arday shaqaale iyo cid walba oo ku xiran iyo waalidiintoodaba in loo khidadeeyo 5 sano ee soo socota qorshihii jaamacadda Golis ay ku socon lahayd
shirkeenan maanta waxa uu ka turjumaya tayada iyo garashada iyo quality iyo qiimaha ay jaamacadda Golis leedahay. waa jaamacadda keliya inta badan strategic plan-keeda iyo waxay ku socon lahayd iyo qorshaheeduba u qoran yahay. cid kasta u soo gasha ama u timaada ama la kulanta ay garan karto jaamacaddu halkay u socoto iyo halkay ka timid. waxaan rajaynayaa inaynu qorshayaashii iyo qorshihii aynu samaynay aynu sidoo way fulin doono. waxyaabihii challenge ama comment loo baahdana dib laysi maartay xiriirka dee mataqaana la xoojin doono. soo dhaweynaynaa waxaananu dhammaanteedu maanta aanu ku heshiinay inaan strategic plan-ka higsigaas inaanu sida kii hore u hirgelinay 5 sano soo socda hirgelino iyo curriculumkii manhajkii la dhigayna inaanu aad uga sii shaqeyno oonu midayno sidii loo dhigayay macallimiinta iyadoodii wixii oo dhan aanu ka wada shaqeyno anagoo ka faa'iidaysanaynaa casrigan aynu joogno ee digital age maanta aan loo baahnayn inaan laascaanood baceer gaaba jooga inagoo hargeysa joognaa ama burco aanu shirarka wada yeelan karno. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibrahim Nafaqo iyo sidoo kale gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashe ayaa iyaguna soo dhaweeyay qorshahan lagu horumarinayo jaamacadaha Golis isla markaana lagu tayeynayo waxbarashada jaamacadahaasi. waxaan rajeynayaa dalka oo dhan maadaama ka socotaan inay saas oo kale ay tahay Golis isku mid tahay. aad baan ugu faraxsanahay inaad kala soo qayb galo qorshaha aad samaysateen ee 5 sano ee soo socdo aad ku maareynaysaan jaamacadda Golis. waana loo baahan yahay wax kasta inay qorshe iyo hadaf iyo ujeeddo ay leeyihiin. aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa mar labaadkana waan idin soo dhaweynayaa madaxda ka socota dalka ee jaamacadda Golis. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in lagu qabto maanta gobolka Togdheer qorshe hawleed 5 sanadood ah halkan loo fadhiyay lagu dajiyay maxay dhacday qorshe hawleedkii 5 sano ilaa 25 ilaa 21 ilaa 25 ka in halkan lagu dajiyay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya. waa arrin qiimo leh, waa arrin muujinaysa horumarka iyo kobaca aqooneed ee jaamacadda ku tallaabsatay. qorshahan 5 sano lagu dejiyay shirkan ayaa qayb ka dardargelinta iyo sidoo kale sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarasho ee ay bixiyaan jaamacadahaasi Golis ee ku kala yaala gobolada Somaliland. Khaliil Barraawran, TV-ga qaranka Somaliland, Burco. masaajidka Furqaan ee magaalada Hargeysa ayaa munaasabad dhiirigelin ah u qabtay daayarta ku xidhan masaajidkaasi. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. barnaamijkan oo ah mid sanadla ah ayaa waxa soo qaban qaabiya masaajidka Furqaan ee ku yaala xaafadda Xaraawr ee magaalada Hargeysa. waxaana barnaamijkan ujeedadiisu tahay sidii daayarta ku xidhan masaajidka gaar ahaan waqtiyada cibaadada loo dhiirigelin lahaa loogana wacyigelin lahaa afooyinka ay leedahay balwaduhu. waxaana munaasabadii lagu dhiirigelinayay daayartaasi ka soo qayb galay culimaaudiin iyo waalidiinta ku dhaqan xaafadaasi. ugu horreyn waxaa halkaasi hadalla dhiirigelinaga jeediyay Sheekh Muxiyadiin Xasan Cali, Sheekh Aadan Nuux, Ismaaciil Cabdilaahi Ciise iyo Jimcaale Maxamed Mahdi. barnaamijkan caawa ka qabsoomaya Masjidul Furqaan magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Xaraawr. barnaamijkan oo la magac baxay ama la yiraahdo dhiirigelinta dhalinyarada oo dhowr sano masaajidka ka soo socday. arrintan haddaba dhiirigelinta daayarta ay odayaashaasi iska xil saareen waxa ay door muhiim ah ka qaadanaysaa dhisidda bulshada ama mujtamaca. waayo dhalinyartu waa ubaxa u soo koraya dadka. dhalinyartu waa halka laga qiimeeyo bulshada. haddii bulshada yarteedu ay u hagaagaan mustaqbalka
ummaddaasi ama bulshadaasi waa u fiicnaanayaan barnaamijyada noocan oo kale ahina waxay dhisayaan markaa bulshadii bay dhisayaan ay qayb ka yihiin halkan dhallinyaraa fadhiisata daaraha hortooda oo habeenkii ku ciyaarta turub waagaa ugu beriya ilaahay kuwa idinkama yeelo idinku halkan aad joogtaan aroortiina madaaristiina tagtaan hoomwerigiina ka shaqaysaan salaadiina odayaasha la tukataan qur-aankiina akhrisataan waana sida la doonayo haddaa kubadda ciyaartaana dhib ma laha oo jidhkiinaa ku koraya oo ku xoogaysanaya waxaan leeyahay nololma taalo kaabadaha la fadhiyo iyo majirida lagu qaylayo iyo baadhiyada lagu jiro iyo baraha bulshada ee lagu indhabeelay in habeen iyo maalinba aanu daawanayno waxaan leeyahay waa halkan masaajidka halkan ay nolosha dhabtii taalaa guddidan qabanqaabisay arrinkan waxaana miisaanka xasanaadka ilaahay ha u saaro dhallinyaradana insha allahu tacaala waxaa lagu qiimeynayaa safka hore iyo 5 salaadood tarbiyada akhlaaqda abaalmarintu waxay ka kooban tahay kitaab quraana iyo kitaab ducaa iyo qadar lacaga sheekh cali aadan oo ka mid ah culimada dalka oo isagoo halkaasi hadalla dhiirigelin ka jeediyay ayaa ka warramay qiimaha iyo ahmiyadda ay leedahay dhiirigelinta daayartu raggaas oo xaadiraya ee awaamirta ilaahay qaadanaya qodobka koowaad buu ahaa qodobka labaad wuxuu ahaa markaa waxaan dhinaca akhlaaqda iyo edabta waxa weeye waxa la yiraahdaa at-tarbiya wa ta'liim tacliinta waxa ka horeeya edabta iyo akhlaaqda ka horeysa haddii ardaygu ama ninka dhalinyarihii uu edab iyo akhlaaq helo tacliinna uu heli karaa wanaag kalena uu kasban karaa laakiin haddii akhlaaqdu ka xumaato waxna ma baran karo naftiisana ma anfici karo dadka kalena waxba uma tari karo waxaa runtii jecelahay markaa inaynu kulligeen dacwadda islaamka u shaqayno dacwadda markaynu u shaqaynayno waxaa ka mid ah inaynu jeclaano inaynu dadka masaajidka keenno oo ka aan tukanaynin aynu ka naxno ka gidaarka fadhiya aynu ka naxno ka safka kula fadhiya aynu tukanaynin aynu ka naxno oo in masaajidka markaa keenno ragga qur-aanka markaa lagu tartamo la xifdiyo oo masaajidku uu noqdo markaskii xaafadda dhalinyartu ay ku soo ururayeen ee ay markaa ka qaadanayeen tacliinta ay fikir ka qaadanayeen ee markaa waxa weyn isku abaabulayeen haddii ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dambe waxa halkaasi lagu guddoonsiyay jaayisada isugu jira kutub iyo waliba qadar lacaga daayartaasi si ay tusaale ugu noqdaan dhalinyarada dhigooda ah ee ku mashquulsan balwadaha iyo mukhaadaraadka jaamacadda Armas ayaa tababar u qabatay qaar ka mid ah ardayda sanadkan ka baxaysa jaamacadaasi tababarkan oo ay soo qaban qaabisay jaamacadda Armas ayaa ujeedadiisu ahayd sidii loo bari lahaa ardayda sanadkan ka baxaysa sida loo difaacdo buuga ay diyaariyaan ardaydu marka ay ka baxayaan jaamacadda ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay Khaliil Ismaaciil oo kamid ah professorada dhiga jaamacaddaasi waxaana uu ka warramay ujeedada ay u qabteen tababarkan inuu noo bilaabmay barnaamijkii aan ugu talagalnay ardayda seniorka ah inay ka faa'iideystaan oo si qurux badan loogu bilaabmay oo habsami ah rajaynaynaa insha Allah ta'ala kuwa soo socdaana inay noogu qabsoomi doonaan sidaas leeg Maxamed Ducaale oo ah professorka bixinayay tababarkaasi ayaa ka warramay ahmiyadda uu tababarkani u leeyahay ardayda sanadkan ka baxaysa jaamacadda Armas workshop ama seminar hore waanu qaban jirnay jaamacadda waanu ku qaban jirnay waqtiyo kala duwan waanu soo jirnay marka maadaama anagu aan chance helnay inaanu jaamacado kala duwan tagno markii jaamacadda Armas aanu ka baxnay kadib oo wadanka dibadiisa ku yaala oo anagu waayagnimo kala duwan marka aanu ka soo qaadanay cilmi baaris kala duwan iyo waxyaabo kala duwan aanu qoraal ku sameynay oo training badan aan qaadanay marka waxaan isla soo qaadanay in ardayda sanadkan jaamacadda ka baxaysa seniorka departmentka doonaan ha ahaadaane aan u sameyno research seminars kuwaas oo ardayda ku orientation ama tababar ku siin doono marka hore sida wax loo qorayo ama sida researchka loo sameynayo inkastoo filayo inaad badankiini aad qorteen oo aad gabagabaysay warkii aad kala socoteen telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland khiyaarteeda qiimaha qaayaha iyo qadarinta mudan ee hawada nagala xidhiidhaysa intaasi ayuu ku eegyahay tan inta aynu ku kulmi doono warka xiga hadii ay beedmo aniga iyo khiyaartii kale ee kala qayb qaadatay waxaan idinku dhaafinaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh